Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. Kusoo dhawaada shabakada laga bartay cilmiga technology-ga guud ahaanteeda loo yaqaano Techmal. Waa aniga Amiin Cabdiya. Mawduuceena kooban waxaan maanta ku falanqeyn doonaa waxa weeyaan sideed mobilkaaga ugu isticmaali lahayd mouse ahaan computerkaaga. Casharka haddii aan wax ka taataabano maanta waxaan baran doonaa waxa weeyaan mobilka smartphone-ka ah ama waxaan u naqaanaa dhulkeena screen touch-ka ah ayaa waxaan u isticmaali karnaa mouse ahaan adigoo computerkaaga u isticmaali karna mouse xagga aad ka maamushid mouse-kaagan ayaa intaad iskaga tigtid ayaa waxaad ka isticmaali kartaa mobilkaaga balse loo isticmaalaya waxaan isticmaalanaa waxa weeyaan labada software waa isku mid laakiin waxay ku kala shaqeynayaan midna mobilka midna computerka. Labada software waxaa soo saaray shirkadda loo yaqaano Intel soo saarta graphics amba CPU-ga. Shirkadda waxay soo saartay software-ka yar ee kooban in uu isku xiro isagoo wireless isticmaalaya mobilkaaga iyo laptop-kaaga markaasna aad u isticmaali kartid mouse ahaan. Bal aan eegno suu shaqeeyo. Waxaan maanta isticmaalanaa waxa weeyaan mobilka smartphone-ka ah waa Galaxy S2. Waxaan u isticmaalaynaa mouse ahaan inagoo u isticmaalna computerkaas. Labada software waxaan ka helaynaa waxa weeyaan description-ka ama hoos haddaad video-ga u daadegtid waxaad ka helaysaa laba link oo guji oo magacyadooda intii ku qoran yihiin calaamad yar oo fur waaweyn ah guji ku qoran tahay. Labada software midna waxaad ku isticmaalaysaa waxa weeyaan mobilka oo waxa ku qoran waa APK file baa ku qoran. APK file-kaas waxaad ka helaysaa waxa weeyaan mobilka weeyaan file-ka uu ku furmo application-kaasi. haddii aad ka maarantidna waxaad tegaysaa Google Play Store-ka ayaa tegaysaa waxaad ku qoraysaa Intel Remote Control. adigoo ku qoraya Intel Remote Control ayaa waxa kusoo baxaya software yar oo loogadiisu noocaas oo kale ay tahay. Okay, si fiican lama arkayo laakiin waxay u eg tahay wataa Intel Remote Control-kaas. adigoo kaa isticmaalaya ayaad waxaad isticmaalaysaa waxaad u isticmaali kartaa mouse ahaan. Okay, bal suu shaqeynaya markaad ku install garaysid software-kii insha Allah waxaan ku eegi doonaa okay markaad ku install garayso software-kii ayaa waxaad sameynaysaa intaad start tagtid ayaad software-kii soo kicinaysaa. Software-ka icon desktop-ka amale laakiin wuxuu ku jiraa start menu-ga. Start menu-ga markaad ka heshid yaa waxaad ku jiidaysaa okay waa anigan ku jiidnay markaad ku jiidid sawtaad kaliya furmay laakiin program soo baxaya maaha. markaad furtid waxaad mobilkaaga tagaysaa. mobilkaaga markaad tagtid ayaa waxa aad sameynaysaa waxa weeyaan software APK gira ayaad xaga ku qoraysaa. APK gira waa ka remote control-ka waa ka remote control-ka ayaa taabanaysaa. remote control mar hore aan test ku sii sameeyay kii loss ku yiri iska bax. remote control-ka yar wireless ayuu baahiyay waa adiga arkay no wifi connection play adiga arkaya no wifi connection ayuu soo qoraya. marka waa inaad wifi continue-ga tagtaa ka bacdi wifi-ga aad furtaa. markaad furtid wireless-kiisa automatically isku xiraya adiga arkaya automatically markuu isku xiray ee waxaad ka soo noqonaysaa back ayaad oranaysaa. markaad back tiraadid markiiba wuxuu noo soo qabtay desktop-ka aad arkaysaa inuu noo soo qabtay ayaad ku dul jiidaysaa. markaad ku jiidid markiiba adiga arkaya shufuq ayaa ka dhacday. marka wuxuu leeyahay mouse-ka waad isticmaali karaysaa. iminka mouse-ka wax kasta uu leeyahay xataa keyboard uu leeyahay keyboard-ka aad isticmaali karaysaa. mouse-kan dhaqdhaqaajino laptop-gii adiga arkay anoona gacan la gelin ayaan xaga ka isticmaalaynaa. adiga arkay mouse-ka yara inuu socdo aad kolba meel geyn karto. waxaan furaynaa waxa weeyaan Microsoft Edge oo ah browser-ka cusub ee Windows 10 lagu soo daray. waan xiraynaa adiga arkay wixii baan wada xirnay. right click haddaad u baahan tahayna laba jeer ayaad saa ugu jiidaysaa. right click laba farood adoo haya ayaad saa ugu jiidaysaa. labada farood waxay u taagan tahay right click. waxa kale uu leeyahay mouse-kii agay scroll down-kii scroll up-kii oo xagan kuugu yaala oo isagana aad hoos iyo sare ugu socon kartaa.
waxa kale uu leeyahay keyboardkaasaan xagaa intaan ku jiidno ayaan ku qori karana waxaan rabno adiga arkaya keyboardka ayaan waxaan doono ku qori karana xagaas inuu nagu qormaya saanaad u isticmaali kartaa softwareka waxaad ka helaysaa labada software mid waa apk filekaas waxa uu ku jiraa waxa weeye waxaad ku isticmaali karaysaa mobilkaaga ka kalena waa software labadaba linkigooga waxaad ka helaysaa videoga hoostiisa haddii aad sidaa loogu install gareeyo fahmi weydid please contact us amba nagala soo xiriir adoo comment noo dhigaya amba noogu reebaya pageka kasii hooseeya linkiyadaas oo facebook account-kaaga isticmaalaya insha allah intaas ayaan cashirkeena maanta ku joojina wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu